wax aad u weyn ayaa weli ku qarin kara hadka nidaamkayaga qoraxdu. Ma jiraa meere weyn oo aan la ogaan oo ku yaala cidhifyada sare ee nidaamka qoraxda. Fikradda ayaa soo jirtay tan iyo ka hor intaan la helin Pluto 193 eberyadii. Waxaa lagu calaamadiyey meeraha cirbixiyeennada caanka ah waxay u soo bandhigeen sharaxaad ku saabsan wareegga Uranus, kaasoo ka leexanaya dariiqa dhaqdhaqaaqa orbital ee fiisigiska uu filayo inuu raaco. Rufistiidadka meeraha aan la ogaan, oo dhowr jeer ka weyn dhulka, ayaa loo arkay inay tahay sabab macquul ah oo kala duwanaanshuhu. Qarsoodigaas ayaa ugu dambayntii lagu sharaxay dib u xisaabinta tirada Neptune ee 199 eber meeyadii, laakiin kadib aragti cusub oo ah meeraha suurtagalka ah ee 9 ayaa la soo bandhigay 2 eber 16 cirbixiyeennada Konstantin Batygin iyo Mike Brown ee Alted. Aragtidoodu waxay la xiriirtaa Kuiper Belt, suunka weyn ee meerayaasha dwarf, asteroids iyo arrimo kale oo ka baxsan Neptune oo ay ku jirto Pluto. Walaxyo badan oo Kuiper Belt ah, oo sidoo kale loo yaqaan walxaha Transneptunian, ayaa la helay iyagoo ku wareegaya qoraxda, laakiin sida Uranus kuma sameeyaan jihada joogtada ah ee la filayo. Waxaa la xidhiidha qalaad fosil adduunka oo laga helay cidhifyada nidaamka qoraxda. Batygin iyo Brown waxay ku doodeen in shay leh jiidashada dhufistiidka weyni ay tahay inuu saameeyo meeradooda, waxayna soo jeediyeen meeraha 9aad si ay u noqoto sharaxaad macquul ah. Tani waxay la mid noqon doontaa waxa ku dhaca dayaxdeena. Waxay ku wareegtaa qoraxda 365 maalmoodba mar, iyadoo la raacayo waxa aad ka filan karto marka la eego kala fogaanshahooda. Si kastaba ha ahaatee, jiidashada dhulku waa sida in dayaxu sidoo kale ku wareego meeraha 27 maalmoodba mar. Marka laga eego aragtida kormeeraha dibadda, dayaxu wuxuu ku dhaqaaqaa dhaqdhaqaaq xawli ah oo natiijadiisu tahay. Sidoo kale, walxo badan oo ku jira Kuiper suunka ayaa muujinaya calaamadaha wareegyadooda ay saameeyeen wax ka badan culayska qoraxda oo keliya. Inkasta oo cirbixiyeennada iyo saynisyahanadu ay markii hore ka shakiyeen meeraha 9 aragtida, waxaa jiray caddayn isa soo taraya iyada oo ay uga mahad celinayaan indho-indhaynta xoogga leh ee sii kordhaysa ee ah in wareegyada walxaha Transneptunian ay dhab ahaantii khaldan yihiin. Sida Brown uu yidhi 2 eber 24. Waxaan u malaynayaa inay aad u yar tahay in 9 uusan jirin. Hadda ma jiraan sharaxaadyo kale oo ku saabsan saamaynta aan aragno, ama saamaynta aan tirada lahayn ee kale ee 9 ku abuuray ee aan ku aragno nidaamka qoraxda. 2 eber 1 tusaale ahaan, waxaa lagu dhawaaqay inuu jiro musharax cusub oo ah meeraha irifka ah ee ku wareegaya qoraxda, oo loo yaqaan 2 eber 17 of 2 eber 1. Shaygani waxa uu qiyaas ahaan u jiraa 7 eber eber km, dhulku waxa uu qiyaas ahaan ka weyn yahay 1 waxaana uu leeyahay wareeg eliptical ah. La'aanta wareegtada wareegta ah ee qoraxda ku wareegsan waxay soo jeedisay ama saamayn horaantii nolosheeda oo ku dhejisay waddadan, ama saamaynta dhufistiid ee meeraha 9aad. Dhibaatooyinka aragtida. Dhanka kale, haddii meeraha 9aad jiro, maxaa qof weli u heli waayey? Qaar ka mid ah cirbixiyeyaashu waxay su'aalaan haddii ay jiraan xog ku filan oo ku saabsan walxaha Kuiper si loo caddeeyo gunaanad kasta oo ku saabsan jiritaankeeda, halka sharaxaadyo kale loo soo bandhigo dhaqdhaqaaqooda, sida saamaynta giraanta qashinka ama fikradda cajiibka ah ee god yar oo madow. Arrinka ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, waa in aan la arkin nidaamka qoraxda ee dibadda muddo dheer. Tusaale ahaan, shayga 2 eber 17 of 2 eber 1 waxa uu leeyahay muddo orbital ah oo ku saabsan 24 eber 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 oo sano. Halka dariiqa orbitalka shay ee ku wareegsan qoraxda laga heli karo dhowr sano gudahood. Saamayn kasta oo cufiskiid ah waxay u baahan tahay 4 ilaa 5 wareeg oo wareeg ah si loo ogaado isbeddel kasta oo daasoon. Helitaanka walxaha cusub ee Kuiper Belt ayaa sidoo kale soo bandhigay caqabado hortaagan aragtida 9 meeraha. Ka ugu dambeeyey waxaa loo yaqaan 2 eber 23 shay uu helay telescope Subaru ee Hawaii. Waxaa loo yaqaan sednoid, taasoo la micno ah inay ku qaadato inta badan wakhtigeeda ka fog qoraxda, inkastoo gudaha eega ballaaran ee qoraxdu ay leedahay jiidashada cufjiid. Meeshani waxay ku taal qaar ka mid ah 5 eber 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 aw ama cutubyo xidigiye ah, halkaas oo hal aw ay ka fog tahay dhulka ilaa qoraxda. Kala soo ida shayga sida sednoid sidoo kale waxay la macno tahay saamaynta cufiskiidadka ee Neptune, wax saamayn ah kuma yeelanayso. 2 eber 23 habka ugu dhow ee qoraxda waa ku dhowaad 7 aw, halka barta ugu fog ay tahay 433 aw. Marka la barbardhigo, Neptune waxay qiyaastii 3 eber aw u jirtaa qoraxda. Shaygan cusubi waa mid kale oo leh wareeg aad u eliptical ah, laakiin wuu ka xasiloon yahay 2 eber 17 of 2 eber 1, taas oo soo jeedinaysa in meeraha weyn, oo ay ku jiraan meeraha mala-awaalka ah ee 9, uusan si weyn u saamaynaynin jidkiisa. Haddii meeraha 9aad jiro, waxaa laga yaabaa inay tahay inay ka fogaato 5 eber eber aw qoraxda. Matalaadda nidaamka qoraxda oo muujinaya suunka Kuiper. Qaybta walxaha cagaaran ee ka baxsan Neptune waa Kuiper Belt. Si ay arrinta uga sii darto meeraha 9 aragti, tani waa sednoidkii afraad ee la ogaado.
Saddexda kale waxay sidoo kale muujinayaan wareegyo deggan. Si la mid ah waxay soo jeedinayaan in meere kasta oo 9 ah uu noqon doono mid aad u fog runtii. Si kastaba ha ahaatee, suurtogalnimada weli waxaa jiri kara meere weyn oo saameeya wareegyada meydadka gudaha Kuiper Belt. Laakiin awooda irbixiyaasha si ay u helaan meerahan oo kale ayaa weli ah mid xadidan xadidaadaha xitaa safarka hawada ee aan cidi wadin. Waxay qaadanaysaa hal sideed sano in dayax gacmeedku u safro meel fog si uu u helo, iyadoo lagu salaynayo qiyaasta xawliga sahmiyihii NASA's New Horizons. Tani waxay ka dhigan tahay waa inaan sii wadnaa ku tiirsanaanta telescopes dhulka iyo meel bannaan si aan wax u ogaanno. Asteroidska cusub iyo walxo fogfog ayaa la helaa mar walba iyadoo awoodeena wax ku eegisteena ay noqonayso mid aad u faahfaahsan, taas oo ah inay si tartiib ah u iftiimiso wax badan oo ku saabsan waxa halkaas ka jira. Haddaba fiirso meeshan aad u weyn oo aan aragno waxa soo baxaya sannadaha soo socda. Wadahadalka. Maqaalkan waxaa dib looga daabacay wadahadalka hoos yimaada shatiga hal abuurka guud. Akhri maqaalka asalka ah.